السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إذا لهانتين با ميل والبود نقا داوتان هلكن waa Royal TV xarunta aynu ku leenahay magaalada Muqdisho. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxaana idin la diyaaraa anigoo ah Miira Sheekh Maxamed Kashka. Mudanayaasha golaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta u fariistay akhrintiisii saddexaad hindisa sharciyeedka maareynta maaliyadda. sida uu warkaasi noogu hayo waryaheena Cabdiraxmaan Saciid. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay sharciga maareynta maaliyadda. shir gudoonka kulanka ayaa ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. kulankan ayaa waxay goobjoog ka ahaa 141 xildhibaan. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu horeen cod galiyay sharciga maareynta maaliyadda oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo horay u soo maray 2 aqris. xildhibaano gaaraya 135 xildhibaan ayaa codkooda ku ogolaaday in la meelmariyo sharcigani halka 6 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ay diideen. mana jirin xildhibaan ka aamusay. sida uu natiijada codeynta ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. maanta ay taariikhdu tahay 19 bisha 6 2019 kooramka annaga waa 141. ajandaha kulanka waa akhrinta saddexaad hindisa sharciyeedka maareynta maaliyadda iyo qaybinta hindisa sharciyeedka maareynta maaliyadda. aanu codayno ajandaha marka gudoomiyaha guddiga maaliyadda miisaaniyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda ee golaha shacabka mudane xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Siraaji ayaa xildhibaanada golaha uga mahadceliyay ansixinta sharcigani. howlwadeennada saxaafadda waaxda amniga waxaan dhammaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta oo ay taariikhdu tahay 19 Juun 2019 waxaa sharaf weyn ii ah anigoo ku hadlaya afka guddiga maaliyadda inaan idin soo hordhigo akhrinta saddexaad ee sharciga maareynta maaliyadda ama waxa loo yaqaan BFM Public Financial Management. sharcigan shaqadiisa waxay soo bilaabatay mudane gudoomiye 2014 waqtigii baarlamaankii 9aad wuxuuna akhrintiisa labaad la dhageysto warbixinta guddiga. sharcigan akhrintiisa labaad wuxuu maray bishii Oktoobar bishii 10aad ee 2018. sidaad u ogtihiin ama hore aan kugu sheegnayba sharcigan marka hore wuxuu ku qornaa Ingiriis marka waxaa waqti badan naga qaatay inaan Ingiriiskii aan af Soomaali u turjumno. luqadii waa luqad maxaa la jiray sharci marka waqti dheer bay nagu qaatay. dhibaatada ugu weyn ee kala kulanay waxay bedelitaanka luqadda Ingiriiska oo Soomaali loo bedelayo. mudane gudoomiye sharcigan wuxuu hagu u yahay ama hoos imaada shuruucyo kale oo aad u badan sidii sharciga hanti dhowrka guud, sharciga iibka qaranka, sharciga furdooyinka, sharciga maareynta dakhliga iyo shuruucyo kale oo maaliyadeed. marka sidaad u jeedaan mudanayaal iyo marweyn sharcigan waa sharci muhiim aad u ah horumarka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed waana sharcigii hagi lahaa maaliyadda dalka anaga. dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in maadaama maalmihii la soo dhaafay ay joogto noqotay in xildhibaanada kulamada golaha ay ka maqnaadaan aan marnaba loo dulqaadan doonin. waxaan idin sheegayaa qodobka 23aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka faqradiisa 12aad ayaan isticmaali doonaa wixii hadda ka dambeeya oo ah in qofka sabab la'aan maqnaada loo gudbiyo guddiga anshaxa. markaa kadibna sida xeerku uu qorayo wixii markaa buuga dhexdiisa ka soo bax asagana uu ku qanco. marna waxaan loo dulqaadan doonin xildhibaan ka maqnaada kulamada sabab la'aan. waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanadii diiday in ay ansixiyaan sharcigani. xildhibaanada sharafta wasiirka xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin. aniga saddex qodob ayaan rabaa inaan ka taabto sharcigan. ugu horeyn mid waa arrin iska general ah oo caqabad nagu qabata sanad walba nagu qabsata miisaaniyadda markaan ansixinayno. hadda waxaa ka muuqata gudoomiyaha iyo guddiga shaqo fiican ay qabteen inuu soo jeediyey
inay dib u dhigid ku sameeyeen sanadka dhammaadkiisa meesha 15 Oktoobar ahayd 30 Oktoobar Cabdiraxmaan Saciid Xasan Talante TV-ga Royal magaalada Muqdisho